بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا لي الأول الله سبحانه وتعالى جل وعلا ما هدس كله عليه إسلام نقدقي وحنيدكم السلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الميل والباء جوكتان إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريا إن إلهي سبحانه وتعالى دنوتنا وضافه إن إلهي سبحانه وتعالى قفل بوحج عليه إلهي سبحانه وتعالى وصيه waxaan maanta joogaa oo aan ka hadlayaa kanaalka Faadumo maadaama wixii warbixina oo cusub aan rabno dadka walaalaha naga inaan la wadaagno alxamdulillah dadku walaalaha ducay wadaan ilaah baan subxaanahu wa ta'ala u leenahay walaalshiin iyo walaalkiin aad iyo aad baad ugu soo ducayseen biidnillaahi subxaanahu wa ta'ala waan u jeednaa rajadu inay meel fiican ay marayso maxaa cusub waxaan rabaa inaan kala qaybiyo laba qodob inaan kala qaybiyo kelimadeyda qodobka koowaad oo maanta ay tahay bishu 3 September alxamdulillah ilaa baa mahad iska leh waxay waalidku ay la kulmeen aniguna goobjoog aan ka ahaa bifadlillahi subxaanahu wa ta'ala labadii caruur oo waaweynaa oo ay Faadumo iyo Maxamuud ay dhaleen الحمد لله آدي آد بيسوق فرحين ووحل فرحه إلهي نحرستيسا كما قوسنينه لا تقنطوا من رحمة الله إننا مع العسر يسرا عليس والبوحة كدن بي فضيت والله سبحانه وتعالى ويري وحلقة جوغا مركي سوق دن بيسي أي والد كاس يلا بضع عرور أي وضع كل ما وحي إهد ودهد كله سنة أي إهد إلهي سبحانه وتعالى وحو قريمانتا إني المهاس أي وضع كل مان أي وذا قديان أي وذا شركيستان أي وذا كلمين الحمد لله لنا الدونيه بإذن الله سبحانه وتعالى سيدي المهاس إي والد كودا دب لي سوغسو وذا علين لها نرشي أي شلي أي هيستينا أي سوغسو نقول لهايين كلنا كاسي سفي عن أو وناكسن أي ودعي آدي آد بيسو محبيين فرحد وين باكر دعضي ماشي إلهي سبحانه وتعالى والد إيا الماء سبحانه أيا ماشي ولا ليرسوي ماذي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى تاسين وفضل الله سبحانه وتعالى جل وعلا حق سكاء هاتي وحين أغنهي ضد مسلمين بيننا هي وحين الرميسنا هي قدرته وحين الرميسنا هي وحول بقى دعية إن الله سبحانه وتعالى حق سكاء إيمان كان أيا نفرية أركان الإيمان أيا كمتهي وبالقدر خيره وشره وحول بقى دعية خير شر إلهي سبحانه وتعالى بو حق سكاي هذه رجوين باجرته الماس ولا سوق سو علينيا ان كلن كود هورينا ما انتو دعي سند ايغو كلا مقنا idin kana walaalayaal ducada aad duceyseen aad iyo aad baydin kaga mahadnaqayaan dadka walaalaha ee Soomaaliyeed iyo waalidka caruurta dhalayba aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin inay maaragtay muxuu ahaa aad duceyseen ilaahayna waxaan ka baryayaa qof walba in ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaankiisa xasanaadka loogu daro wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam noo tilmaamayaa xadiis uu leeyahay qofka aan arinta dadka umuurahooda aan maaragtay aan hamiga iyo maaragtay ka warqabka aan ahayn nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis buu noogu bishaareeyay wuxuu noo sheegay inay wanaag badan qofku helayo qofkii ilaahay subxaanahu wa ta'ala arinta dadka walaalihiis ka shaqeeya arrimihiisana ilaahay subxaanahu wa ta'ala u shaqeynaya walaalayaal warbixinta ugu horeysa waa warbixinta ay waalidkan ilaahay subxaanahu wa ta'ala Allah barakay waa dad sabr badan waa dad iimaan badan waa dad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xiran oo qadarta ilaahay subxaanahu wa ta'ala aaminsan imtixaan baa la marsiiyay waayo imtixaankaas la marsiiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ku guuleysin doonaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala jalla wa ala imtixaankaasi farxadii iyo nimcadii ugu horeysay waxay bilaabatay maanta oo ah khamiis ah ayay u bilaabatay way la kulmeen wixii hadda ka dambeeyana waxay noqonaysaa kulamadaasi soo socda haddii ilaahay yiraahdo sidii ilmahaas iyo waalidkood meel la isugu keeni doono walaalayaal arrinkaas farxadda ah baan rabay inaan idin la qaybsado midda ugu horeysa waxaad sugaysaan oo kale iimaan xaalkeeda xageeba ku sugan yahay waan dareemi karnaa waa gabar yar oo maaragtay hooyadeed markay dhashay laga qaatay xanuunka ay leedahay qof walba uu dareemi karaa lagama warrami karo qof walba hooyo xanuunkaas way dareemi kartaa waayo
hooyo ilmaheedii intay dhashay iyadoon maaragtay muxuu ahaa waqti badan la qaadan laga qaaday. laakiin ilaahay fadligii subxaana wa tacaala kumuunka ay maanta usoo guudhay waa kumuun la shaqaynaya. kulamo badan baanu la yeelanay, way la kulmeen markii labaad ay la kulmi lahaana waxay ahayd isla shalay bay ahayd, laakiin qofkii dumarka ah ee gacanta ku haysay baa xanuunsatay, usbuuca soo socda bay la kulmayaan. waxaa kaloo iyadana bishaarada ah, maadaama kumuunkani ay dacwadii soo gaadhay oo dacwo maaragtay aada iyo aada u culus oo aan rabi inaan sii karo uu kaminka hore kasoo galay, kumuunkani marka wuxuu sameeyey inuu wada shaqeyn uu waalidku u furo, inuu baaritaan uu sameeyo. taasina waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayaa biasmaa'i wa sifaati alculyaa inay maaragtay arrinkaasna ay maaragtay ilmahaas iyo hooyadoodna isheli doonaan biidn illahi subxaana wa tacaala. walaalayaal saan hore usoo sheegay, naxariista alla subxaana wa tacaala kama quusanayno. gabadhaas yar iyo hooyadeed iyo aabaheedba waxay maaragtay isla kulmi doonaan marka labaad. midda labaadna wixii ay kamuunkale ooga baahnaayeen aynu maanta aynu joogno wax walba way u sameynayaan. baaritaan meelihii kale looga diiday ayay maanta qoladani u ogolaadeen oo ay rabaan waalidkan iyo kamuunkan inay isbartaan. marka taasina waa bishaaro ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaatay. waayo ka xuseenhan kalsooni weyn baan ku qabaa, kalsoon weyn oo 100% aan ku qabaa. waayo maanta meesha ay lagu qaatay ayaan 100% ku qabaa markii la fiiriyo gabadha yar ee iimaan. ilaahayna subxaana wa tacala waxaan ka baryayaa inuu ilahay raddan jamiila subxana wa tacala ugu soo celiyo. midda saddexaad, ilahay waxaan ooga baryaynaa waalidkaasi carruurtooda in ilahi subxaana wa tacala isugu soo celiyo. waxaan oran lahaa aan kusoo gabagabeyn lahaa, waayo xanuunka waad la qaybsanaysiin walaashiin iyo walaalkiin. waayo qofka mu'minka ama iimaanka ah wuxuu jecel yahay wuxuu nafsadiisa la jecel yahay. ayuha alikhwa, ka waran oo ka warrama hooyo iyo aabbo gurigoodii uu buuxay shalay, maantana aan waxba gacanta ku hayn oo carruur ka hayn. xanuunkaasi siduu dareemi karo waad dareemi kartaan walaalayaal. walaakiin waxa ayaan darro ah, oran mayo dadka soomaaliya 100% aada iyo aad baan ooga mahadnaqaya, allah idin barakeeyo. laakiin waxaa jirta koox aada iyo aada u yar. waxaa laga yaabaa sawiradooda intay qaataan kadibna waxyaalo aan loo baahnayn inay maarkino ka hadlaan. walaalayaal waxaan idin leeyahay anoo xuseen faarax xaaji warsame ah, waxaan idin sheegayaa oo dadkan waalidiintan dacwadoodana akhristay si walbana oo la socday, waxaa keliyaan idinku koobayaa waalidkan imtixaan baa ku dhacay. imtixaankaas baa ku dhacay, laakiin waa hooyo iyo aabbo wanaagsan, laakiin imtixaankaas baa ku dhacay. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa qof walba ha ku ducaysto inuu ilaahay subxaana wa tacaala imtixaankaasi uu ku keeni. waxaa kaloo ummadda looga baahan yahay sidii hore aad ugu duceynayseen inaad aad ugu ducaysaan ayaa la rabaa. walaakiin waxa ayaan darro ah inuu maaragtay qof intuu maaragtay ama youtube soo galo ama wax kale iska sheego. taasna waxaan oran lahaa aakhiradaada u baq. waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay qof walba kelimada uu ku hadlo ilaahay subxaana wa tacaala wuu weydiinaya. qofkuna hadduusa waxba ka ogeen yuusa ka hadlin. taasaa wanaagsan. alxamdu lilah, rajadii way bilaabatay, wayna socotaa. bacdallahi subxaanahu wa tacaala walaalaha soomaaliyeed oo duceynaya ee meel walba jooga mashriq iyo maqrib ayaa fadligaas iska sugnaaday. sababtaas baan usoo galay, maadaama walaal aysan hadda soo geli karin oo anigana goobjoog ka ahaa kulanka aan la joogay, aan arkay farxaddii dhex martay. waa dareemi karta farxaddii dhex martay waalid iyo carruurtood aan walaalayaal muddo sanads arkin. ayuha alikhwa, feeri taas xaqiiqa, bal feeri ilmihii adigu aada dhashay aysa geeri aysa haleelin, aysa meel kale laba wadan aydin kala joogin, oo waddanka adiga aada joogtay aada awood u heli weysay, oo aada maanta la kulanto farxaddaasi inta aada dareemi karta qalbigaa uu soo geli kara billaahi calayk. feeri walaalayaal, taas baan ku dhihi la aniga. waayo 1 sano oo kaamila ilmahaagii aadan arkin, waad kalgaceylkii aada u qabtay iyo wanaag aada u qabtay, haddii maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala jalla wacalaa adiga kuu keenay, waa nicma min allahi subxaanahu wa tacaala. waayo nicmada ma dareemi karo qofka haysta, ma dareemi kara nimcada, laakiin waxaa dareemi kara qofka nimcadiisa ay ka maqanta ayaa dareemi kara. waayo waxaanu aragnay masaajidadu wanaagga ay leeyihiin markuu coronaviruska u dhacay, masaajidada la xiray ayaa dadku waxay ogaadeen masaajidadu wanaagga iyo khayrka ay leeyihiin. marka waxaad dareemi kartaan ilmahaas waalidkood ka maqnaa 1 bil
oo maanta lala kulansiiyey sida ay dareemi karaan walaalayaal waa dareemi kartaan. allahna waxaan ka baryayaa biasmaa'i wa sifaati alculya in allah subxaana wa tacaala jala wacalaa familkan iyo caruurtooda ilaahay inuu meel isugu keeno, iyaga iyo inta kale oo xanuunkan xanuun lamida qaba oo walaalo ah ee soomaaliyeed oo mashriqi ah oo maqribi aha jooga, ilaahay iyaga iyo caruurtooda dhammaantood allah isugu keeno. ilaahay waxaan ka baryaynaa maxabadii dhex taalay iyo gurigii shalay buuxay oo maanta cidlada ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala usoo buuxiyo oo isugu soo celiyo ayaan allah subxaana wa tacaala ka baryayaa. waxaana idin leeyahay ducada meeshiina ka wada. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.